in ka badan 100 askari oo kamid ah ciidamada deegaanka isla markaana qayb ka noqon doona difaaca iyo xoreynta deegaanada koonfurta gobolka Mudug ayaa tababar loogu soo xiray degmada Wisile ee koonfurta Mudug waxaana tababarkan bixintiisa iska kaashanayay taliska ciidanka daraawiishta Galmudug iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybtooda kumaandooska danab ee deegaanada Galmudug tababarkan oo soconaya wax ka badan bil ayaa ciidamada lagu barayay taatikada dagaalka sida shiishka qaadista weerarada qorshaysan difaaca la socodka dhagaraha cadawga iyo xeeladaha ay isticmaalaan kooxaha ka soo horjeeda deganaanshaha iyo nabadda Soomaaliya ciidamadan tababarka dhameystay ayaa dowladus ku sameeyay tababarka iyo casharada ay qaadanayeen muddada kuwaas oo ay u riyaaqeen saraakiisha ka qayb galay gaashaan la sare geeda qalab xor oo kamid ah saraakiisha bixinaysay tababarkan ayaa sheegay in ujeedka ciidamadan loo tababaray ay tahay ciribtirka iyo la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab horintan waxay kamid tahay ciidanka daraawiishta dafcadda hadda lagu tababaray ciidanka Wisileed waxayna ku biirahayaan ururada daraawiishta waxaana rajaynayaa inay ka qayb qaataan dagaalanka qawaariijta ay ka qayb qaataan waana ka qayb qaadanaya allowna ugu jireen waa ciidankii oo joogay hore u joogay marka baalka oo jiray waxa loo furo tababar shacabkuna markaan wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalo nimanka qawaariijta meel kasta uu joogo waana sii soconayaan tababarkana waa fayskii labaad oo loo soo xiray ciidankan fayskii labaadna waa bilaabanaya hadii rabbi idmo ciidankana waxa ay ku darsamin doonaan ururada daraawiishta waana ciidankii deegaamada laga soo xulay oo laga soo qaaday waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan dagaalka qawaariijta insha Allah gaashaan la dhexe Axmed Maxamed Xaashi oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwooda ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa la dardaarmay ciidamada tababarku u dhamaaday ku mahadsantihiin sida sharafta leh dadkiina iyo dalkiina ugu soo dhiidhiseen adinkoo ka danqanaya dhibaatada ku dhacday asaagiin adinkana leen la maagana waxaan si gaar ah u mahad celinayaa macallimiinta tababarka ee ururka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed dadweynaha soo aruurshay ciidankan deegaanka oo gartay markii dhibaatadu dhacday inay aad isku abaabulaan baa si gaar ah ugu mahad celinayaa ciidankana waa ciidanka culimada ee deegaanka waxaan ku xulanay balwad la'aanta waxaan ku xulanay sharafta iyo xishoodka adkaysiga iyo gaajada oo adkaysigooda waxaan ku mahad celinaynaa sida sharafta leh ay dadkaasi ehelka ah oo dhan noogu mataqaanaa abaabuleen waxaan ka mahad celinaynaa sida sharafta leh tababarka u qaateen khaas ahaan maanta aan tusteen dabridkii ugu dambeeyay ee tababarkii ugu dambeeyay kumaandoosta ahaa sida la socotaanba Soomaaliya tababar fiican bay qabtaa ciidamadeedu waarsa iyo naataba waa qabnaa tababarka Afrika anaga noo soo doona jirtay libaaxii of Afrikaan ahayn hadda maanta burburkaan insha Allah taala waa ka soo kabanaynaa walooyina loo soo manguuriyay ayaa sababta noo keentay in maanta dhibaatadan dhacdo si gaar ah macallimiinta iyo saraakiisha kale aaga maxaan ku sheegaa oo madaxda u yahay taliye Abdiraxmaan Sheekeeye aanu ciidankan hadda si toos ah u xukuma gaar ahaan asagoo gacanta ku haya aaga ciidanka mas'uuliyadiisa inta aaga sheegay laga soo bilaabo Hobyo ilaa Qaydaro aagaas xukuma ayaanu ku wareejinay gacantiisa annagu waxaanu nahay abaabul koonfurta gobolka Mudug waxaa ka socda muddo ku siman 2 sano isdifaac iyo dagaal looga soo horjeedo kooxda al-shabaab oo halkaas duulaan ku soo qaaday waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay dadka shacabka ah ee ku dhiiranaya ka qaybgalka dagaalka lagula jiro kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab Saadaq Saciid Nuur raadiyaha telefishinka Galmudug gaalkacyo